maxkamaddu iyadoo tix raacaysa sababaha iyo qodobada kor lagu faahfaahiyey waxay soo saartay go'aamadan. kow, iyadoo lagu saleynayo qodobka 82 ee sharciga doorashooyinka iyo mabaadi'da dastuuriga ah ee doorasho xor, xalaal iyo cadaalad ah, maxkamaddu waxay go'aamisay in doorashooyinka isku sidkanaa ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee 30 Luulyo 2026 ka dhacay dowlad goboleedka Galmudug aan loo maamulin loona qaban si waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka, sidaas darteedna natiijadeedu ay tahay mid aan ansax ahayn oo waxba kama jiraan. laba, iyadoo lagu saleynayo qodobka 77 ee sharciga doorashooyinka iyo waajibka guddiga ka saaran meelmarinta iyo ku dhaqanka sharciga, maxkamaddu waxay go'aamisay in khaladaadkii dhacay ay ahaayeen kuwo aan la sixi karin isla markaana dhaawac weyn u geystay hufnaanta, xornimada iyo xalaalnimada doorashooyinka, saameyn tabanna ku yeeshay natiijadooda. saddex, iyadoo la ilaalinayo xaqa muwaadiniintu u leeyihiin doorashooyin toos ah, xor iyo xalaal ah, isla markaana la fulinayo waajibaadka sharci ee ku xusan sharciga doorashooyinka, maxkamaddu waxay amartay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha inuu ku qabto waqtiga ugu dhow ee macquulka ah doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedka Galmudug, isagoo si dhammaystiran u raacaya dastuurka dalka, sharciga doorashooyinka, sharciga dhismaha guddiga iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda. afar, iyadoo la tixgelinayo danta guud, joogtaynta maamulka iyo ka hortagga firaaq maamul oo dhaawici kara adeegyada iyo xasiloonida dowlad goboleedka Galmudug, maxkamaddu waxay amartay in hay'adaha hadda jira ay sii hayaan xilka inta ay ka bedelayaan kuwa ku yimaada doorasho cusub oo loo qabtay si waafaqsan sharciga. shan, iyada oo la tixgelinayo mabda'a cadaaladda guud iyo duruufaha dacwadan doorasho ee taabanaysa danta guud, maxkamaddu waxa ay go'aamisay in dhinac kasta qaato kharashka dacwadda ee uu galay. xukunkan waxaa lagu soo saaray Muqdisho 24 bisha 8 2026, maxkamadduna waxay xidhan tahay.